xafladan lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ujeedkeedu ahayd mid loogu mahad celinayay madaxda dowladda Turkiga sida walaaltinimada leh oo garaadkoodu ay ugu heeliyeen dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed xubnaha ka qayb galay xafladda ayaa waxa ay isugu jireen mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka Banaadir madaxda dowladda Turkiga u jooga Soomaaliya saraakiisha kala duwan ee ciidamada ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow ayaa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa ka sheekayay sida walaalaha Turkiga u soo caawiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed xafladan caawa aan ugu talagalnay mahad celinta walaalahan Turkiga ah oo runtii hantay qulubta shacabka Soomaaliyeed ujeedadoodu waxay ahayd inaan tusno sida shacabka Soomaaliyeed oo mar walba ugu qanacsan yahay una fahamsan yahay qofka walaalka dhabta ah cid uu yahay ay naqreen in Turkigu uu yahay walaalaha dhabta ah ee Soomaaliyeed 19 August 2012 ayay ahayd markii caalamku indhahooda u soo jeestay dalka Soomaaliya markii macluul baahsan ee jirtay cid u soo dhaqaaqday la waayay oo u soo dhaqaaqay Rajab Tayyip Erdogan isla markaana isaga iyo xaaskiisii reerkiisii iyo wasiiradiisiiba isagoo ra'iisul wasaaraha markaas door biday inuu yimaado dalka Soomaaliya isla markaana u soo jeesto walaalaha muslimiinta ah dalka Turkiga afarta nooc ee ciidan ee Soomaaliya ay leedahay militariga booliiska asluubta iyo nabad sugidda ciidan aysan gacan siin ma jiro taas waa adag tahay mana jirto dal aan ka helno inuu dhammaan intaas ciidan nooc kala duwan oo dalkeena ay gacan siiyaan warkayga waxaan ku soo gunaanadayaa magaca taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda magaca dhammaan taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinku mahad celinaynaa wanaaga gacanta iyo walaaltinimada noo haysaan waana mahadsantihiin safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya Olgan Berkar ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan garab istaagida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed 2011 yılından beri Somali'yi takip eden bir kardeşiniz olarak şunu söylemek istiyorum. Somali her geçen gün gelişmektedir. Her geçen gün ileriye doğru gitmektedir. Sorunlar vardır. Sorunlar hep olacaktır. Ama biz bu sorunları adım adım çözeceğiz. Aniga arrimaha Soomaaliya waxaan la socday tan iyo 2011kii waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaaliya inay horumarayso Soomaaliya inay kacday oo hore u socotay annagana waxaan diyaar u nahay Soomaaliyana la garab taaganahay sidii ay u horumari lahayd horena ugu socotay Maxamed Cali Wehliye Universal TV magaalada Muqdisho